بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka barnaamijkeena daawadayaal waxaynu diiradda ku saari doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo xaaladda adag ee ka jirta waddankan Turkiga dab xoogan oo kusii faafaya keemo badan iyo magaalooyin badan oo holcaya barnaamijkeena ayaynu diiradda ku saareynaa iyo Azerbaijan oo ciidamo gurmad dabdamisa usoo dirtay waddanka Turkiga mar kale daawadayaal soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowno dowladda Turkiga ayaa dadaal xoogan waxa ay ugu jirtaa sidii lagu damin lahaa dab xoogan oo ka kacaya keemo ku yaala gudaha waddankan kaas oo saameeyay magaalooyin fara badan oo ah kuwa loo dalxiis tago iyadoo ay jiraan khasaare dhimasho dhaawac ka dhashay dabkani sidoo kalena waxaa jira burbur hantiyadeed waxaana uu saameeyay dad aad u fara badan wasiirka wasaaradda beeraha iyo dhirta ee dowladda Turkiga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in ilaa iyo haatan ay xakameeyeen 74 ka mid ah kaymaha ku yaala waddankan oo dab culus uu ka kacay sidoo kalena ay wili jiraan kaymo kale oo aad u gubanaya waxa uu tilmaamay wasiirku in kooxaha dabdamiska ay wadaan dadaal aad u xoogan laakiin hadda ay ugu daran yihiin ilaa 18 goobood oo aan la xakameyn wili xaafad ku taala magaalada loo dalxiis tago ee Antalya ayaa laga barakacay kadib markii dab xoog badan uu soo galay xaafadda oo uu ku soo faafay waxaana sidoo kale dabkan lagu soo waramayaa in ay dhinac socdaan dabaylo waaweyn ilaa 330 qof ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyay dabkan wasiirka ayaa tilmaamay in ilaa iyo 4,000 oo shaqaale ah 6 diyaaradood 9 gaadiidka gurmadka ah oo loogu talagalay in ay dabka damiyaan gaar ahaan gaadiidka diyaaradaha ah helikobtaro diyaarada aan duuliye lahayn iyo sidoo kale 180 booyadaha dabdamiska ayuu tilmaamay in kaalin weyn ay ka qaadanayaan daminta dabkan waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga oo isna hadlay uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid meel adag sii maraysa isla markaana ay iyagu wadaan dadaallo xoogan oo lagula dagaalamayo dabkan horumarana laga sameeyay meelo badan oo waddanka Turkiga ah lana damiyay kaymo badan oo holcaya dabka keemaha ayaa tan iyo Arbacadii ka soconaya gobolada Mersin, Osmaniya, Adana, Antalya iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo Kahramanmaras waxaana sidoo kale la sheegayaa in guryo badan dabkan uu cagta mariyay arinta ugu dhibka badan waxa ay tahay magaalada Antalya oo ahayd xilligii loo dalxiisayay maadaama samarka lagu jiro waxaana taasi ay keentay in dalxiisayaal badan ay naftooda halkaasi kala soo cararaan wasiiradan waxa ay sheegayaan in dadaalada ay yihiin kuwa aad u socda oo aan isla markaana la joojin doonin inta laga wada daminayo dabkan waxaa jira dad lagu tuhmayo inay arintani ka dambeeyeen waxaana soconaya baaritaano sababtu waxa ay tahay waxa la sheegayaa in dabka si kas ah loo daaray sidaasna uu ku sii faafay hay'adaha garsoorka iyo kuwa sharci fulinta waxay sii wadaan baaritaankooda ku aadan sababaha dabka keenay bayaan ayaa la soo saari doonaa marka la helo natiijo muhiim ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga sidoo kale isaga oo ka hadlayay mala awaalka ka jira baraha bulshada ayaa wasiirka beeraha waxa uu ku booriyay dadweynaha in aysan ku tiirsanaan wararka aan la xaqiijin ee la helayo sababta dabka uu ku bilowday laakiinse ay ka warsugaan hay'adaha garsoorka iyo kuwa ammaanka si loo yareeyo culeysyada maaliyadeed ee dhibanayaasha dabka dib u bixinta amaahda dadka waxyeelada ay ka soo gaartay hantidooda ayuu sheegay wasiirka in la bilaabi doono sidoo kale waxa uu tilmaamay dowladda inay kaalin weyn ka qaadan doonto dib u dejinta dadka guryahooda uu ku basbeelay dabkan dadaalada lagu daminayo dabka ayaa ka sii socda gobolada dhowra sida ay xaqiijiyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo beeraha ee waddanka Turkiga laga bilaabo maanta waxaan bilaabi doonaa qayb ahaan lacaga aan siinayno muwaadiniinteena kuwaas oo la go'aamiyay in magdhow ahaan looga dhigo waxyeelada soo gaartay 3 ka mid ah muwaadiniinteena ayaa ku dhintay Antalya midna Mugla ayuu ku dhintay waxaan u rajaynaynaa naxariista Alle ayuu raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga
isaga oo hoosta ka xariiqay in wareejinta wadar ahaan 23.5 milyan oo lacagta Turkiga ah qiyaastiin ah 2.8 milyan oo dollar laga bilaabo hay'ado iyo wasaarado kala duwan oo loogu talagalay baahiyaha degdega ah xilliga dabka uu ka socdo Antalya. Wasiirka ayaa iftiimiyey in ay jiraan ilaa 42 xaafadood oo uu dabka saameeyey, 27 xaafadoodna laga qaxay, halka 15 ay sidoo kale qayb ahaan saameeyeen dabka oo ay basbeeleen. Waxaa kaloo uu sheegay in xarun isku dawid laga dhex abuuray xafiiska gudoomiyaha gobolka ee loogu talagalay baahida dadka ee dhammaan xaafadahaasi. Inkastoo dabkan uu yahay mid aad u saameeyey waddanka Turkiga isla markaana musiibo lama filaan ay ku noqotay, ayaa haddana waxaa jira dadaallo xooggan oo la wado. Dowladda Turkiga ay walaalaha yihiin ee Azerbaijan ayaa dhankeeda bilowday gurmad in ay u sameyso dowladda Turkiga si looga caawiyo daminta keymaha. Koox ka kooban ilaa 100 qof ayaa waxa ay soo gaareen waddanka Turkiga, waxaana la geeyey Antalya, halkaas oo xaaladda ugu adag ay ka taagan tahay. Kooxdani waxa ay doonayaan inay garab istaagaan Turkiga waqtigan adag, waxaana ay doonayaan inay kaalin weyn ka qaataan daminta dabkan. Dowladda Azerbaijan waxa ay sheegtay in dhib iyo dheefba ay la qaybsan doonto walaalahooda Turkiga, isla markaana ay diyaar u yihiin inay kaalin weyn ka qaataan sidii dabkan loo damin lahaa. Baraha bulshada laga isticmaalo gudaha waddanka Turkiga waxaa aad looga hadalhayaa arrimaha dabka, iyada oo dabkanna si lama filaana uu ku sii faafayo. Xilligan dhammaan keymaha ayaa ahaa kuwo cagaaran oo geedaha waxa ay ahaayeen kuwo dib u soo laabtay cagaarkooda ama caleemahooda, waxaana taasi ay keentay in si lama filaan ah dab loogu faafiyo. Wararka suuqa yaalla ee warbaahinta gudaha waddanka Turkiga ay qorayaan waxa ay tahay laba arrin. Kow, in arrintan ay ka dambeeyaan PKK oo iyagu markii looga itaal roonaaday dagaalada ay kula jireen dowladda Turkiga inay dhankan u soo weeciyeen. Arrinta labaad waxa ay tahay in koox dhalinyaro ah ay benziin ku shubeen qayb ka mid ah keymaha ku yaalla waddanka Turkiga, dab ay qabadsiiyeen, sidaasina dabka uu ku soo faafay maadaama geeduhu ay yihiin kuwo isku xiriira ilaa iyo gobollo badan oo waddanka Turkiga ah. Xitaa waxaa laga yaabaa dabkan in uu saameyn ku sii yeesho meelo kale oo waddanka Turkiga ka tirsan. Kooxaha gurmadka ayaa la arkayay iyaga oo badbaadinaya duurjoog fara badan oo qaarkood aad u basbeelay, qaarkoodna dadka ayay dhankooda usoo maciin bideen si looga badbaadiyo dabka qabsaday goobaha ay ku noolaayeen. Haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano wixii kusoo kordha arrimahan wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. Guud ahaan barnaamijkeena waa naga intaas, barnaamijka mid lamid ku kulmi doona. Nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.